بسم الله سلام الله عليكم كلانتي وعن او wanaagsan umada Soomaaliyeed gabi ahaantiinba sikin kasta iyo saacad kasta ay idin tahay saliga nabiga subhanahu sallallahu alayhi wa sallam ha hilmaaminina waqti salaahda idin tahay soo tukada barnaamijka waxa idin daadinaya aniga oo ah walaalkiin Imraan Maxamed Yare waxaan ku bilaabaynaa jariirada la yiraahdo Fox News ayaa waxay sheegtay shalay oo Arbaca ahayd in ay xildhibaano ka tirsan dimuqraadiga iyo jamhuuriga si wada jir ah inay mooshin oo keeneen oo soo diyaariyeen mooshinkaas oo u saamaxaya Israa'iil in la siiyo diyaaradda wax gumaada ee B52 si Israa'iil gacanta hadday ku dhigto diyaaraddaas waliba ah diyaarad aan cid kale ilaa iyo hadda wali aan loo ogolaan qiyaas ahaanna dhowr xabo oo kaliyaba Mareykanku uu ka haysto xataa tiro badan uu ka haysanin in la siiyo maadaama ay tahay ciidamada caalamka ay isugu dhow yihiin militariga Mareykanka iyo Israa'iil ay faraatiyiin in la siiyo si hawshii looga baahnaa Mareykanku inuu qabto ay u qabato dawladda Israa'iil ama Netanyahu uu barnaamijka u fuliyo sidaa darteed barnaamijkaas ayaa la dhirinaya ilaa iyo haddana hawshaas waa socotaa Trumpna waxa la leeyahay waxa uu qarka u saaran yahay in uu barnaamijka qalinka ugu duugo kadibna wax allaale iyo wixii ay doonaan bariga dhexe iyo meeshay doonaanba inay ka sameyn karaan Israa'iil waxa kale oo aad iyo aad la yaab u noqotay dawladaha China iyo reer Yurub oo dhan in ay qorsheynayaan in ay kala baxaan kaydkii dahabka ahaa oo u yaalay dalka Mareykanka inay kala baxaan waxa hadda si degdeg ah u bilaabay dawladda Jarmalka sida aad arkaysaan iyo Talyaaniga oo iyagu mar horeba qorshaystay in ay kala baxaan lacag dhan 245 bilyan oo dollar lacag ah dahab u dhigma oo u yaala kaydka inay kala baxaan sababta awal keenaysay in ay kaydkaas dhigtaan ama dawladuhu ay dhigtaan baa waxay ahayd waa wadanka kaliya oo aan siyaasadiisu isbedbedeli jirin buu ahaa wadankaas oo berigii hore ay ku loolami jireen laba xisbi oo kaliya madaxweynuhuna uu ahaan jiray waxa xisbiyadaas ay qorsheeyaan inuu mid mar walba mid fuliyo uu ahaan jiray waqtiyadii dambe oo hadda Trump labadii door ayay waxa la arkay in uu wax allaale iyo wixii uu u baahdo ay mararka qaarkood dhacayso inuu isagu ikhtiyaar u fuliyo sidaa daraadeed maadaama siyaasadda Mareykanku siyaasad fadhida oo aan gurguurin ay ahayd ayay wadanadaasi awal waxay qorshaysteen kaydka dahabka in uu u yaalo dalka Mareykanka laakiin hadda xaaladaas wax weyn ba iska bedelay Jarmalka iyo Talyaanigu wayba qorsheeyeen inay kala soo baxaan China oo kaleeto oo isaguna dahab aad u fara badan u yaalay isaguna waa hore ayuu bilaabay inuu qararto haddana waxa ku soo daba jira dawladaha reer Yurub oo dhan sababtana waxa keenay madaxweynaha maanta talada haya dalka Mareykanka oo siyaasadiisa aan la saadaalin karin xaalad kasta iyo xilli kasta uu joogana si kastaba daqiiqad isu bedeli kara majariha maanta wixii la isku og yahayna laga yaababa inuu isla berri ka baxo ama sidii bari loogu socdo in la arko isagoo boqol socdo sidaa daraadeed waxa ay qorshaysteen dawlado badan oo reer Yurubihi in ay isagaba baxaanba barnaamijka dhaqaalaha kaydka in ay dahabkooda inay kala baxaan oo ay faarujiyaan qolo walbina ay dalkeeda dhigato waxyaabaha isweydiinta mudan baa waxay tahay dawladda Jarmalku kuma kalsoona miyaa dawladda Talyaanigu kuma kalsoona miyaa wadanadooda ama China oo kale waxa ahaa qorshahani qorshe soo bilowday muddo aad iyo aad u fog qorshe soo bilowday ilaa 100 sano ka hor kaydkana halka la dhigi jiray sida la og yahay ilaa iyo muddo 100 sano ilaa iyo maanta siyaasadda Mareykanka wax weyn oo iska bedelay ma jiro inta la og yahay wax guur ah oo ku dhacay ma jiro laakiin maanta waa maalinta ugu darnayd baa la leeyahay Mareykanka hal nin baa madaxa ku sita waa sababta kalifaysa inay kala cararaan oo dawlad waliba ay aamini weydo oo yiraahdaan waxaan la baxaynaa dhaqaalaha iyaga haddii ay marka dhacdo in ay dhaqaalaha la baxaan maxaa iman kara su'aasha ugu muhiimsan waa taas waxa iman kara haddii ay kala soo baxaan dahabka kaydka oo u yaala dalalka reer Yurub haddii ay kala soo baxaan ama iyo China iyo haday kala baxaan waxa imaanaya in uu maslafo ama dhaqaale burbur uu ku yimaado dalka Mareykanka oo totally qiimihiisu oo aad iyo aad u dhaco hadda sida la arko lacagta Mareykanka iyo lacagta Yuurada oo kaleeto way sinaan jireen inta badan way isla socon jireen maanta laakiin waxa qiimo dhac badan uu ku yimi
dollarka Mareykanka haddii xaaladdu sidan oo Trump u wadwado ay ku sii socotana waxa la arki doonaa dollarka oo qashinka la mid noqon doona mawduucaas haddii aynu inta ugu gudubno waxaynu u gudbaynaa arrin yaab leh ummadda Soomaaliyeedna ku noqon karta dhekafaar iyo wax mucjiso ah lagana yaabo inay reebto cawaaqib xumo mustaqbalka dambe iyo kan haddaba ah mid raandhiis noqota iyo mid maanta istaagaba labadaba laga yaabo in dhaxalkeedaas la maalo oo dhibaato aan la malayn doonin ama la saadaalin doonin inay halkaa ka dhici doonto waa maxay arrintaas waxa weeye waxa qorshe adag gaaray dowladda Israa'iil waxayna go'aan ku gaartay in ay Xuutiyiinta u geystaan duqeyn aad iyo aad u ba'an qorshahaas kadib markuu soo baxay waxa aad loo falanqeynaya joornaalada jariiradaha ka soo baxa Israa'iil dhexdeeda qaarkood waxa ay ka hadlayaan oo sheegayaan in qorshahaas laga fulin doono dhowr qodob midow sida la og yahay oo iskaba caadiga ah saddex waddo u furan Israa'iil haddii ay rabto Xuutiyiinta inay duqeyso mid waa wadada koowaad waa inay marto dhinacan iyo Sacuudiga dushiisa kadibna ay halkaas ka gudubto waa meesha ugu fudud ay ka duqeyso waxaase la og yahay Xuutiyiinta iyo Sacuudigu in ay dhigteen shuruudo aad iyo aad u adag aysan dhici karayn in laga duqeeyo Xuutiyiinta oo la og yahay gantaalo aad u awood badan oo xoog badan gantaalo dheereeya iyo waliba qiyaasta meesha ku qiyaasan si toos ugu dhacaya inay haystaan la og yahay Sacuudiguna hadda ka hor uu gacmaha ka taagay xaaladda wadanka Yemen marka isku qabteen ama dhinaca Sanaa gacanta uu ka taagay heshiisna ay kala saxiixdeen sidaa daraadeed la fili maayo sinaba inay u soo maraan diyaaradaha Israa'iil dalka Sacuudiga dushiisa marinka labaad oo ugu fudud baa wuxuu yahay inay soo maraan dhinaca iyo badda casna saldhig badeed muhiim ah ayaa waxa kula dalka Iran iyo Xuutiyiintuna waa loo yahay waa Mareykan iyo Israa'iil oo kale waa far iyo faraati ama waa wiil iyo hooyadii lagama yaabo diyaaradihii Israa'iil oo Xuutiyiinta duqeynaya oo halkaa maraya in ay daayaan ugu yaraan waxa loo badinayaa inay yiraahdaan diyaaradahaas idinku soo maqan iyaguna gantaalihii ay ku soo rideen diyaaradihii Mareykanka bay haystaan waxa marka aad iyo aad ay uga baqayaan in marka ay dul maraanba raadaarkoodu inuu yiraahdo diyaaradahaas idinku soo maqan iyaga oo gaarin looba sii diyaarsado oo halka looga sii rakibto sidaa daraadeed waxa la leeyahay dhinacaasina macquul ma aha dariiqa ugu sahlan oo ilaa ay hadda la sheegaya waxa weeye dhinaca Eritrea ma mari karaan oo dawladdaasi waa dawlad Eritrea xuduud dhowna ay Yemen leeyihiin macquul ma aha Djibouti waa la og yahay ma mari karaan laakiin inay ka soo wareegaan dhinaca iyo Ethiopia Soomaaliyana marka ay halka ka soo galaan maadaama aysan badda cas dhinaceeda soo mari karin in dhinaca Ethiopia iyo duleedka ka soo laabtaan soona maraan dhinacan iyo Soomaaliya halka markay soo istaagaan wax badan xataa uma baahna sida la og yahay berbera oo kale haday dul istaagaan xataa maqa waxay u jirtaa 275 mayl sida la og yahay 300 kilomitir nimanka ka tuuraya gantaalaha kumanaanka kilomitir 200 waa hasha ila lisway boosaaso oo kale waa 270 iyaduna waa la mid waxana waliba la sheegaya raadaar imaaraadku uu dhigay dalka Soomaaliya gaar ahaan boosaaso in uu jiro raadaarkaasna ay leeyihiin Israa'iil haddii ay dhinaca boosaaso soo istaagaan iyadana si degdeg ah bay uga duqeyn karaan laakiin maxaa uga iman kara dhinaca iyo Soomaaliya gebi ahaan Puntland Jubaland Hebeland midna inagoon kala qaadin maxaa u iman kara waxa uga iman kara cawaaqib xumo waxaan arkaynay maalmo dhaweyd ra'iisul wasaaraha Djibouti oo la Mareykanka annaga u diiday inuu ka duqeeyo wadankayaga sababtoo ah meesha ugu horeeya ay soo duqeynayaan waa ilboorkayaga sidaa daraadeed waxaan nidhi maya laakiin kuwin madidooyinka Soomaaliya ma laga yaabaa inay diidi karayaan haday Israa'iil halka timaado waaba hadiiba wax laga weydiiyo waxaase isweydiin mudan haddii ay halkaa soo istaagaan oo ay gantaalada ka soo ridaan Soomaaliya maxaa uga iman kara ma laga yaabaa Xuutiyiintu waxa weeye Soomaalida ku maahmaada laba maroodu meesha isku jiraan caws baa ku gacan gala ma laga yaabaa in ay gantaalo u dhiibaan meelahaas ay dul taagan yihiin diyaaraduhu ama ka soo duqeynayaan
ma dhici kartaa in arrintaas haddii ay dhacdo halkaa duqayno ay uga timaado waa arrin isweydiin mudan waxaan rajaynaynaa insha allahu inaysan dhinaca soomaaliya marnaba soo marin meesha ay kala dirirayaan oo kaleeto adduunku waa badan yahay ay kala diriraan waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadgelyo nabaadiina iyo nooli kulantay warsan iyo weersan